mid ka mid ah wasiiradii ugu taageerada iyo shacbiyada badnaa kana mid ahaa udubdhaxaadkii ugu saameynta badnaa xukuumaddii madaxweyne Siinayo aasaasyaashii xisbiga kulmiye mudane Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani rugcadaayo siyaasadda ku gaamiray oo Master Cadaani ay ka wada safteen dawladdii Siinayo ayaan haddana sidiisii raad lagu xasuusto aan ka tagin walaaftanka iyo gurxanka dhigiisa waa nin gondolol u leh gartana aan laga helin ahna geed adeeg mowqifkiisu adag yahay mudane Cadaani waxa lagu xasuusan karaa inuu ahaa xisbiyahan ka maran qabyaaladda qoqobka iyo kala qaybinta wareede aniga ninayga ma qabiilisana ma garanaysaa nin Soomaaliland jooga in qabiilisana ma jiro waayo nin musaar waa bari orisaana ma garanaysaa wallaahi billahi waayo ninkayga qabiilisana laakiin ninka la warwareegayo wax yar yar oo maalayacniya ee beenta dadka ku sheegaya war xusbinima shaqaysa inta aad ku walaaloobaysaan ee aad ku saaxiibaysaan wasaaradda warfaafinta oo ka mid ah wasaaradaha ugu budgetka iyo dhaqaalaha badan oo muddo majaraha u hayay waxa uu noqday wasiir ilaa hadda la tabo xuquuqda shaqaalaha tayeenta TV-ga qaranka iyo idaacaddu waa waxyaabaha lagu xasuusto dadna waraysto waxaan Faysal maxaad qaadataa maxaad ka shaqaysaa wuxuu waligii mushaharna ma qaadan gunana ma qaadan waxay ugu kalifay waxa ahayd inaan anigu qorin cidna aan ka fuuliyay ilaahow may 116 foo walaalahaayana aabbo wada dhalo mar haddii inta la dhaafay damiirkaygu wisi waayaan inta cid kala keeno inaan iyagiina maanta dib u dhaafo damiirkayga isii waayay waxaana ku faraxsanahay oo kaga tagay wasaaradda inuu Faysal iyo shaqo waxa kale oo aan wasaaradda idin sheegaya inaad mashiinada ka raysanaysaan maanta solar system kaaga yahay dubay samaysay uu yahay midaynu mashiinada iyo naaftada iyo petrolka aynu kaga nasaday oo ah waxa warwarka ugu weyn ee maxaa ku dhahay waxaanu kala sameynay inaanu idaacadda ku kordhinay 2 saacadood radio Hargeysa oo ah mid qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhagaaraysa waxaan wasaaradda leeyahay qodobka ugu muhiimsan ee dalkan wasaaraddan ay u baahan tahay waa mid qorow waa shaqaalaha xaq soortaan shaqaalaha wasaaradda in aad u xaq soortaan oo waxa budgetkooda ku jirana aad siisaan ololihii uu galay xisbiga kulmiye doorashadii madaxtooyada ee sanadkii 2017 waxa uu ka mid ahaa madaxdii sida weyn uga qayb qaadatay in madaxweyne Biixi iyo xisbiga kulmiyeba ay talada dalka ku guuleystaan hadallo duurxul kaftan iyo suugaan isugu jira ayaa lagu xasuustaa inuu fagaarayaasha ka jeedin jiray intii ololaha uu ku jiray isagoo la hadlaya 100,000 oo qof jamhuuriyadda Soomaaliland umadeedu dibadiya gudaba waxa maanta dhacay gudoomiyaha waxaan idin wadnaa maanta mujaahidkii dalkan xoreeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiye musharaxa madaxweynaha mustaqbalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahid Muuse Biixi Cabdi Master Cadaani waxa uu ku suntanaa siyaasiyiinta sida weyn uga qayb qaatay goon isku taaga Soomaaliland iyo sidii Soomaaliland aqoonsi buuxa uga heli lahayd beesha caalamka waxa uu ka gilgilin jiray marka cid ama shakhsi ku xadgudubto qarannimada Soomaaliland intuu ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Siinayo iyo hadda uu yahay siyaasi xasaanad leh dagaal walaal wiilun baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaal macnihiisu waa naqaan nin aan aqoon baa dagaal ku degdegay warma haday ka maarmi weydo misaynayna jecelayn dagaal haday ka maarmi weydo oo dalkeena iyo dadkeena iyo cirdigeena ay gasho dalkan iyo dadkan waa loo dhimanaya waligeedna waa loo dhiman jiray intuu ahaa wasiirka Master Cadaani kaliya mu ahayn siyaasi meel mariya siyaasadaha xisbiga iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay sidoo kale waxa uu ahaa mararka qaar samadoon siyaasadeed oo diirad wacan ku eega go'aamada ay dawladda uu ka mid yahay qaadanayso
cismaan cabdilaahi saxardiid cadaani xilal door ayuu ka soo qabtay xukuumaddii madaxweyne Silaanyo waxaana ka mid ahaa wasiirkii duulista iyo hawada wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiir doolihii wasaaradda maaliyadda hadda waxa uu ka mid yahay nusdambeedka iyo dubdhaxaadka xisbiga muddada dheer soo leelinayay Somaliland ee kulmiye